والله يعني بلاجليسيان بدل ما كنت راي ما دبا سموك هنا كلها مالنا سدان باتاي مالنا بسان باتاي حق لي ugu yimaada adiga ma aragtay kol baad iska qaadatid waa dawaqaysa moogta laakiin maxaa u tiri munaafiqiin taabanu kelmadda munaafiqa waxa iga soo baxay waxa weeyaan qofku markuu wajigan ku tusayo kama aha run waa fake waa been waxaan sheegay hoosta wax kale ku haystaa hoosta wuxuu leeyahay qofka uu ku nacaya laakiin wajiga iyo afka wuxuu ka sheegayaa wax kale marka qalbigiisa iyo afkiisa ayaa kala duwan السلام عليكم أصحابتي السودة وهذا مقال عصب ما أنت أدنى وكان أسكسو نقناه وحا أدنى نوصل نقطة حبو سنينا سنينو حبو سنينو ما أنت أصحابتي وحن كحلنا منافقين تاتر ما أنت وحن كحلنا ضدك سبدل كبضن له كل وجه له markay wax yiraahin waxay leeyihiin iyo waxay sameeyaan isku mid maaha kuwa waa nooc kala jira oo maanta waji qurux badan ku tusay Britolana waji xiran kuwa ba fahmin baan kuwaas so maanta kuwa ba ka hadlanaa kulay waan ka hadlanay mar hore bad narcissism laakiin kani wuxuu qaybta narcissism maxay aduu soo galaa narcissism ka soo dhaca nooc min qolooyinka ugu adag ku jira narcissism marka manipulator ba Francis lagu dhaw waxa weeyaan dadkeen waxay leeyihiin afcariga ku munaafiq dad isbedel badan qof aad meel ugu timaadid bagarnay maanta caankana bari caankana oo kuwa kaaga waalay way jiraan way badan yihiin badankana kulliba de family-ga marka la soo dhaafo de asxaabnimada loo dhaqaaqo wadaf qofba maanta inaan saaxiibada oo maanta is arkaysiin oo maalinta wala isla farxaya Britolana ama waxa maqli oo sheeko kale ba adigu waxa xasuusanaysaa maalin qurux badan ay saragtay iyadna waxa ka sheekeynaysaa ma aragtay niblaayo Sunday eegayso anarta indhaha ligu cadibay dad beerada indhaha xun bay eegaysay maalinta hadda miskiinada xagga ma iska so dadka wajiga badan waa dadka caynkaas oo kale ah oo maalin waji qurux badan ku tusay maalin kalena waji xiran ama de waxaan jirana badanka dad xasad adiga nacam xasidnimo ku hayo de waji qurux badan ku tusaya warku ma ka gurayaan markaana wala isku ka bedilaya markay ka danaysteen wadanadii khalaas de wixii doonayaan halaana way isbedeleen so adigu maxaa oran lahayd horta dadkaas calaamadaha laga sheegi karo waa maxay taa ku bilaw waxa weeyaan qofka haduu isbedel badan yahay horta oo maalintii ka Soomaali waji fiican aad ku aragtid maalin kale waji kale aad ku aragtid qof waxa weeyaan qof isku kalsoonaan isagu naftiisa oo iska maaragtay maxaan ku tilmaamaa iska baadhaya marka waxa weeyaan qof iska ashkata badan uu noqon karaa oo marka wuxuu ku oranayaa maalinta uu arko wuxuu kaaga sheekeyn doonaa maxay heblaaya sanigu yiri heblaaya maxay saniyay ka basani waa nooc min qoladii narcissism waxa weeyaan qofku ilama hawada wax ka soo ka ashkatoonaya markaas qofkaas markaad aragtid iska buuq badan leh horta markaa waa dareemaysaa maalma waxa ku yara waalaya maalin isagoo qofkii fiican badan ka saa maalinta kale isagoo isbedelay waxa soo rasa qofka waxba ku dhacay waad ku yara dayaysaa inaad maaragtay la yara sheekeysatid laakiin haday qofkii dhakhtarka hadda qofku waa pathology waa xanuun weeyaan ma xanuun baa jiraba multiple disorder personality disorder way jiraan dad badan ku yara badan yahay markaad aragtid maaragtay qofka aruma hadaan maanta qof ku arko sidan oo bari sidan ku arko waxa weeyaan waxaan galiya anigu nooc la fahmin waxa leedahay isma sii wareegiyo waxa raawan dhinac ma iska yara dhiga waxa raawan ma qaadi karay waayo waxay ka doonaysaa waxani energy bay doonaysaa inaad qofkan la diir gareysid marka ma haleelay de waa maartay adiga baa isku boqsan ma haleelay marka anigu dhinac baan iska garbiyaa mana fahmayna dhakhtar way jiraan deedo maaragtay qofku dhakhtarka tago khibradu ma leeyahay dadku dhakhtar ma yaqaaniin madaxa dadka qofka duu wax madaxa wax ka qabo haduu is dareemayo inay wax ka siihiin aba loo sheego wadeeda lagu hadda anigu ayaa u sheegay
blacklist kugu biirin ilaa balaha ku jirtaa blacklistiga wallahi ani blacklist yar badan ma ku jira ma dhibaysa moogta inaan ku dhaho maalina sidan baa tahay maalina sidan baa tahay xagee lagu yimaada adiga maaragtay kolba iska qaadatid waa dawaqaysaa moogta laakiin maxaa u tiri munaafiqiin taabaanu kelmadda munaafiqa waxay iga soo baxay waxa weeyaan qofku markuu wejigan ku tusayo kama aha run waa fake waa been waxaan u sheegay hoosta wax kaloo ku haystaa hoosta wuxuu leeyahay qofka uu ku nacaya laakiin wejiga iyo afka wuxuu ka sheegayaa wax kale marka qalbigiisii iyo afkiisiiba ayaa kala duwan de waa shaydaanka saabu dadka marka munaafiqa lagu sheegay maaragtay xadiiska lagu sheegay munaafiq waa kaa waxa weeyaan afka niyadooda leeyahay afka wuxuu kaa leeyahay laakiin halkan waa wala daaliin marba marka taasay markii ugu horeysay kusoo baxay taasi waa mid hadduu qofku uu u kasayaa markaas oo qaarna waxa weeyaan maalina uu iskaba fiican yahay hadalkiisii afkiisa uu isleeyahay maalina dhinaca kale uu rogay adam qofka waa la daweyn karaa waan malaynaya qofka uu kasay marka waa xanuun baan malaynaya kaas waa xanuunkii laakiin qofka u kasaya qofkaasi waa waxaan ku tilmaamay waxa weeyaan narcissism markii la dhaafo waa qof adiga kaaga waalayo markuu isbedbedelo adigu wax kaa doonaya adigu ku wareerinaya qofka marka waxaa la dhahaa waa nooc min maaragtay manipulation oo kale qofka waxbaad ka doonaysaa sibaad ula hadli waxii baad ka heshay wassalaamu calaykum xaga kalead ka weyaaratay ismaba taqaaniinba markaa de waxa weeyaan anu saasaan u arkaya marka adu saa ula dhaqmid isnacam adu waxaa dadka oo dhan ma iska dhigtaa waa dhaaftaa lababa waqtiba ma siisid ma sii doono waayo waxa weeyaan asxaabta dhinac baa iska dhigaysaa qofku markuu isagoo isi soo saxo ama dhakhtar ha tago ama meesha doono tago doctor baa horta kamana shaqayn karayo marka qofku markuu isi soo saxo uu qofka la jaan qaadi karayo hadduu ku yimaado qofkii waad la warramid walaal baa tihiin ama faamiyahaado ama asxaabahaado laakiin maaragtay qofku hadduu isi sixi waayo waliba waan u sheegaya hadda anigu waxaan ka oranayaa walaalo shalay gidaarkaas caddaan bua maantana waa casaan adugaa dadka runta u sheegta waxaan ka idhahaa blacklist badan baa ku jirtaa oranataa oo kula qaba blacklist oo markaa waxa weeyaan waxaad noqonaysaa hadde iyaga jirtaa laakiin waxa weeyaan qofku markii loo sheego haddii dee dadkeenu haddii qof kastaba hadduu u sheega ka war imika qof baad aragtay communitygeeni ku dhex jira qofkii kastuu u tagaba hadduu ku idhaaho walaal waxbaa kaasi waa sidii de laakiin qofka kaama caroonayo waxa weeyaan malaa waa sidaa ugu sheegaysid hayna loo yar macnaheeyo lagu dhahay wallahi isbedelkaagu yaro badan yahay laakiin hadduu dhowr qof hadday saabku tiraho inaad isku yaro noqotid oo tirahdii qof kastaba saa maaha dad badan baa oranaya horta hadduu qofka narcissist yahay way adagtahay intuu arko taa because waxay ka dhigan tahay adiga khaladka oo adiga wax kaa dhiman yahay mise adiga caadi yihiin laakiin qofku hadduu narcissist yahay weligii taa ma arkayo hadduu u kasayo ma arkayo hadduu isagu u kasayo garanayo ma arkayo laakiin hadduuna war isku hayno markuu dee hadduuna xataa war isku hayno markuu keligii noqdo qofna la hadli waayo hadday nasteexa erido isniina erido deeqa erido cali eriyo maxamed eriyo la wada eriyo qofkii oo dariiq laga maro qofkii maxaa ku dhacaya kelii buu noqonaya markaa markaa madaxa usoo noqon leh laakiin dadkeenu waxa weeyaan waa la iska wada aamusayaayo waa la isi sitaawi qofkana qofkan abuse garanaya iyo iska sita qofkana qofkan fahmi la waliba uu ku sheegay qofku wuxuu oranaya qofkan waa fahmi lahayaa uu isbedel badan yahay uu ku sheegay hadda uu sitaa maxaa u sitaa dhulka iska dhig beebiga markaad xabaartay hadduu ku qaniino dhulka iska dhig maxaad qof laakiin marka saa waxaad sid waxa la moodaa intaad tahid selfish waa nahay waayo waxa weeyaan selfish waa nahay anu haddaan nafteeda ka shaqayn waayo qof kale ka shaqaynaya ma jirto qofku naftiisa inuu jeclaado selfishnimadu dee maaha dee dadka kale anigu kuma dul tumanay selfishku waa qof naftiisa iska jecel may selfishku dadku si xun bay u fahmeen nuuc badan baa jira selfish waxaa jira dadka kale xumeeya oo dee tiisiisu ma socoto laakiin hadday naftaada tahay oo adigu isdareeyeyla sidoo de is-ilaalinaysid halkaa ma dhaafiyo cidna ma doonto laakiin intan anigu waxaan leeyahay
perimeter the security waxaa meel ina la isoo dhaafina markaan dareemo inuu qofka soo dhaafayo xadkii leenkii waa dareemaysaa culays baa dareemaysaa waayo maaragtay aniguna hadalka koroob iga soo baxaya markaan dareemo markaan ololka dareentid inuu meelahan soo socdo inaad hadalku kaa soo bixi waxaad ogaataa dee maaragtay inuu qofka soo gaadhay marka qofkaasi waxa weeyaan de walaalay dariiqadu way badan yihiin adduunka waxaa ku nool 7 milyaar waan dhaafnay marka 7 milyaar oo qof dadka qof kastiba uu helayaa qof uu la jaanqaado asxaabtu helayaa qofkiisu helayaa dariiqadu way badan yihiin magaalooyinku way badan yihiin wadannadu way badan yihiin marka maxaa dhaqaska la isugu dhajini oo dhabarka la isku korkoray warun culayska la iska daayo dadkeena culayska iska daayaan oo ay isbadbaadiyaan no horta way adagtahay qofku hadduu kow narcissist yahay weligii ma arkayo intuu nacmo khalad hadduu leeyahay weligii khaladka ma arkayo waxaana dhici kartaba inta isaga u noqotoba maxaa tiri dhiirigelin isaga u noqoto waayo wuxuu soran hey dadkan oo dhan baa iga soo horjeeda so narcissistka bay u fikiraan de dadkan oo dhan baa iga soo horjeeda marka kolleyba wax bay iga xaasidayaan saa loo fikiraan right because abilitygan aa leedihiin oo aa fikirayso isku soo noqonayso ishagaajinayso waxay u baahan tahay nacam intaa qof adigu caadi horta qof caadi uma soo fikiri kara laakiin narcissist markaad tihiin always you're never responsible qof kale dadka kale waxay kugu soo wadan aduu victim uma tahay de waxaba cajiiba markay sidaa tahay markaa dadkeenu way wada yihiin bay ka dhigan tahay narcissist inaad qof aniga dambiga la leh anuma arkin dadkan way ku yaryihiin markii kasta waxay yidhaahiin aniga maaha waa foodka oo heblaayo aniga maaha waa hebel aniga maaha waa kan kale aniga maaha waa markii kastaba qof dambi qaata anuma arkin waxaa jira laba nooc baa jira waxaa jira narcissist traits so waxaa haysan kartaa nacam des traits narcissistes laakiin narcissist ma tihid taa way jirtaa dad kalena waa lagu diagnose gareeyay waa narcissist so waa laba nooc laakiin dadka badankooda qof kasta anigu waan iska leeyahay kolleyba narcissistic traits qof kasta laakiin qof kasta wuu iska leeyahay laakiin adigu waxaa ka duwan tahay narcissistka nacam adigu waxaa leedahay ability intaa isku noqotid oo isku fiirsatid oo iskagaajisid laakiin qofka kale narcissistka ma arkay waxaas wayba ka helaanba dadka kale markay isku imaadoon iraadaan waxba kaa siiyayno wuxuu oranba hey dadkan waa xaasidiin laakiin jealous dadku jealous ku wada noqdaan laakiin qofkaas markuu keligii noqdo muxuu samaynayaa weligii keligii ma noqonayo because isagaa isku qalan isagaaba his own fan isagaa isku qalan at a point where qofkan kale uu dulaysan uu dul socon wuxuu doono qofkan kale ku waxaan uu laakiin isaga waxa ka dhaadhicsan qofkan anaa iskale waxaana ku sameynaya qofkan waa caadi because qasab dad adduunyada oo dhan dadkoo dhan wax weynta iyaga u qabtaan laakiin iyagu waxna dadka kale uma qabtaan so kuwa waa narcissist waxaa cajiiba magac badan baa saa hormarmaraya marka haddaad imika indhahayga magac baa halkaa maraya ma sheegaya magacda ma sheegaya laakiin waxa weeyaan astaghfirullah waxa weeyaan waa cajiib de ilaha u gargaaro alla ha daweeyo waxa weeyaan dhakhtaradaas ka tagaan ha isdaweeyaan intii isgaranaysa intaan isgaranayna alla ha u gargaarade anu iga sii cabsiinaysa marka sheekada la yar bedilo qofka narcissistka hadduu yahay waalid oo ciyaal caruur dhalo caruurtiisu ama kuwaba raaca ama kuwaba dayno ilaahay soo badbaadiya marka saabu narcissismku saabu u socdaade ilaa maanta hooyaday haddaan arkayo siday tahay ani waa ila caadi so markay hooyaday markastaba tiraato oo qofka masanigu wixii aniguna sidaa baan u hadli because sidaa baa lii soo koriyay sidaaba fikradeedu waa caynkaas my train of thoughts so taa imika laga cabsoonayo baseeba dadka loo badbaadin lahaa